kusoo dhawaada asxaabta ku xiran channelka Rafiiq Al-Macruuf. Dowladda Qatar waa mid ka mid ah dowladaha Carabta taasoo ku taala Khaliijka, waana mid ka mid ah dowladaha dakhligoodu uu zaa'idka yahay, taasoo ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka dhinaca batroolka. Maantana waxaan idin soo bandhigi doonaa waxyaabaha xaqiiqooyinka ee dowladda Qatar ay leedahay. diinta Islaamka ayaa ah diinta rasmiga ah ee ku dhaqanta dowladda Qatar. sharaxaadda Islaamkuna waa waxyaabaha asaasiga ee dowladda isku xukumaan. luqadda rasmiga waa luqadda Carabiga, ayadoo ay ku dhex jiraan lahjadda Khaliijka loo yaqaan. magacan Qatar ayaa asal ahaan waxaa u bixiyay badmareenkii Talyaaniga ee Batlimos, isagoona calaamadeeyay qaaradda. shacabka Qatar ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 2,200,000 oo qofood. 83% oo shacabka waxay ku nool yihiin caasimad. 13% ayaa Qadariyiinka ah. inta kale ayaa ah Carab, Iiraaniyiin, Bakistaaniyiin, Hindiyaan iyo kuwa kale. dadka jaahilka ee waxna qorin waxna akhrin ee ku nool dalka Qatar ayaa waxaa lagu qiyaasaa 2.7%, waana nisbo ugu yar marka loo fiiriyo dalalka Carabta. maalinka dabaaldegga dalka Qatar ayaana laga dhigin maalinta xorriyadda, iyadoona la waafajinayo 28 Diseembar, iyadoona laga sheekaynayo khilaafadii Jaasim bin Mohammed, kaasoo ah hogaamiyaha guud ee dalka iyo hogaamiyaha qabaa'ilada dalka Qatar ee sanadkii 1978. Qatar waxay xorriyadda ka qaadatay Talyaaniga 3 Sebtembar sanadkii 1971. caasimaddu waa Dooxa, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 1 milyan iyo bar. dowladda Qatar waxaa la sheegaa inay tahay dowladaha farakutiriska ee ka faa'iidaystay kheyraadka dhulkooda. batroolka waa isha koowaad ee dhaqaalaha ka soo gala dalka Qatar, waxaana la sheegaa maalinkii inay dhoofiyaan 1 milyan oo barmiil. waxaana la sheegaa kaalinta labaad inay uga jirto caalamka ee dowladaha dhoofiya batroolka. bedka jaamacadda Qatar ayaa gaarayo 10% marka loo fiiriyo masaaxadda guud ahaan ee dalka, taasoo u dhigmayso 1 kiiloomitir iyo bar. Qatar waa mid ka mid ah dowladaha ugu dhulka yar ee adduunka. Qatar waxay soo gashay kaalinta 12aad dowladaha ugu nabadgelyada badan ee caalamka, waana sababta ka dambayso dad badan oo kala jinsiyadaha ee caalamka ku nool inay imaadaan dalka Qatar si ay ugu noolaadaan nabadgelyada isdhexgalka wanaagsan. wakaaladda caalamiga ah ee dabagalka dadka aan u dhalan dalka Qatar ayaa waxay sheegtay dadka ugu badan ee soo galootiga inay yihiin Hindi, qaybta labaadna Nibraaniyiin, halka qaybta afraad iyo shanaad ay soo kala gelayaan Masar iyo Filibiin. waxaa la yaabka ah in Qatar dadka u dhashay ay soo galayaan martabada 3aad xagga tirada marka la eego. Qatar ayaa ku guuleysatay in koobka adduunka sanadka 2022 lagu qabto dalkeeda, waana dowladdii ugu horeysay Carbeed ee soo gaartay heerkan. dowladda Qatarna waxay ugu diyaar garowday qabashada sanadka 2022 ilaa iyo 9 garoon ee ugu talagashay in ay imaadaan ama ay soo xaadiraan dad ku dhow 1 milyan oo qofood. garoonka kubadda cagta ee dalka Qatar, kaasoo la mataana Asfaciir, waa isbartiibooyinka ama koobaha kubadaha lagu ciyaaro ee ugu waaweyn caalamka, taasoo bedkeedu gaarayo 290,000 oo mitir iskuweer ah, kaasoo iskugu jira goobo lagu dabaashay iyo meelo lagu tababarto. Lu'lu waa mashruuca ugu ballaaran ee dalka Qatar, kaasoo laga heli beedka caasimadda Dooxa, kaas oo ah magaalo kaamil ah, guryo isku wada eg, taas oo loogu talagalay in ay imaadaan dadka dalxiisayaasha iyo kuwa ganacsatada ah. waana meel aad dalxiiska iyo deegaanka ku habboon. calanka dalka Qatar ayaa ka kooban 2 kalar. qaybta caddaanka waxay caddaynaysaa nabadda, qaybta guduudanna waxay caddaynaysaa in dalka Qatar uu soo maray dhibaatooyin iyo dhiig fara badan, kaas oo dhacay qarnigii 19aad bartamihiisa oo u dhexeeyay ayaga iyo Baxrayn. xilligii gumaysiga Talyaaniga uu haystay Khaliijka, Qatar, Baxrayn iyo Imaaraadka waxay isku hayeen hal dowladood. ugu dambeyn, dhibaatooyin dhexdooda ka dhacay ay u kala go'een. Qatar waxay dowlad madax bannaan noqotay sanadkii 1971. sidoo kale dowladda Qatar waxay leedahay kanaalka ugu daawashada badan ee dunida ee Al Jazeera, kaas oo ah meel lagu tababarto cilmi baadhisna ah, kaas oo ah midka ugu daawashada badan ee dunida, wuxuuna leeyahay luqado fara badan oo ku baxo. Qatar waxay leedahay 1 garoon caalami oo diyaaradeed, kaas oo ah midka ugu weyn ee dalku uu leeyahay. Qatar oo u diyaar garoobeysa sanadka 2022 koobka adduunka ayaa waxay ku dartay qayb cusub garoonka caasimadda Dooxa ku yaalo. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni maanta. haddii fikir dheeri aad hayso waad noo soo gudbin karaysaa. assalaamu calaykum.